مسؤولين بدن oo imika ama wasiir ha noqdaan ama agaasime ha noqdaan ama xilal kala waxayaan waxa lagu eedeeyo jirta inay hanti ka dhisteen dawladda inta xilka hayno hanti aan hore u lahayn marka arinta G+1 ama dabaqyo cusub soo kordhay oo mas'uuliyiin cusub ay dhisteen arinta wax baadhis ama wax xogo dheeraad ah ma ka raadiseen sanad gudihii ama sanadii bar gudihii inuu ku dhisto hantida halka uu ka keenay in la isweydiiyo hadii dhowr ahaan iyo gudi ahaan iyo qaran ahaan intaba dadka iyo hawlahooda iyo kuma wax dhistay iyo kuma bangi wax ka amaaday iyo kuma hanti hore lahaa iyo taas inaga shaqo inoo taala ma aha waa luqadii suuqa taasiyo xafiiska kaydka raashinka Burco waa kii xafiiska ka ku yaalay raashin yaali wati la waayay marka mas'uulka arintaasi ka mas'uulka ahaa ee ku eedeysna wali wax talaabo la soo qabtay maxaa si talaabo laga qaaday ay sooran kana kula ujeeda aw ubuuxi ay sooran kani kuma deey qalinku arso ay sooran kana kula ujeeda aw ubuuxi su'aashayda koobaad waxa weeye kulli dadkeenu wixii jirana waxbay ka sheegaan marka waxna waa lagu dari karaa marka arinta sugnaanshaheeda iyo xogteeda iyo wixii ka jira iyada su'aalo waxaan doonayaa mas'uuliyiin badan oo imika ama wasiir ha noqdaan ama agaasime ha noqdaan ama xilal kala waxayaan waxa lagu eedeeyo jirta inay hanti ka dhisteen dawladda inta xilka hayno hanti aan hore u lahayn marka arinta G+1 ama dabaqyo cusub soo kordhay oo mas'uuliyiin cusub ay dhisteen arinta wax baadhis ama wax xogo dheeraad ah ma ka raadiseen qofkani hantidana hore aanu u lahayn sanad gudihii ama sanadii bar gudihii inuu ku dhisto hantida halka uu ka keenay in la isweydiiyo hadii dhowr ahaan iyo gudi ahaan iyo qaran ahaan intaba waxa su'aashaas daba raacda waxa jirta isuduwihii xafiiska kaydka raashinka Burco waa kii xafiiska ka ku yaalay raashin yaali wati la waayay marka mas'uulka arintaasi ka mas'uulka ahaa ee ku eedeysna wali wax talaabo la soo qabtay maxaa si talaabo laga qaaday marka kulli waa lagu de xogaha aan hayno ama xafiisaha soo gaaraya marka su'aasha koowaad bay taas la xiriirda de hadalka suuqa ee runtii luqadda suuqa ah G+1 taasu de wati suuqa oo malayn maayo inay tii xafiisyada dawladda ay runtii tahay dadka shacabka aba sida u hadla waxa weeyaan inagu dawladda waxaan kula xisaabtanaa nidaam baynu kula xisaabtanaa inagu isku tiim baynu nahay nidaam baynu kula xisaabtanaa wasaarad baynu galnaa hay'ad baynu galnaa waynu baadhnaa shakhsiyaad baynu baadhnaa qofka maamulka la baynu baadhnaa wixii ku soo baxaya wixii ka soo baxa ayaynu soo bandhignaa inaku dadka iyo hawlahooda iyo kuma wax dhistay iyo kuma bangi wax ka amaaday iyo kuma hanti hore lahaa iyo taas inaga shaqo inoo taala ma aha waa luqadii suuqa taasiyo taay ku teegaali maayay anaga baaritaankayagu nidaam buu maraa wuxuu maraa nidaamkaas baarista iyo qofka lala wixii uga soo baxa in lagu la xisaabtamo hadii la ka dhigo marka qofkii uu musuqmaasuq ku soo baxay waa lagula hadii la ka dhigo waa lagula xisaabtamaya saxay admin finance ka la xisaabtama mise mas'uuliyiinta kale horta wixii saxiix leh ayaa la xisaabtama qof walba wuxuu saxiixay ayaa hadii la ka dhigo mas'uuliyadeeda qaada la tasiru wasiratu wisra ukhra qof walba wuxuu mas'uul ka yahay baa lagu xisaabtama marka qofna eedaanu lahayn xasha ilaahay lama doonto sida awgeed bay de qofkii eedaysani qofna eedaanu lahayn guudka lagama saaro isna ma aqbalayo wax walba waa ku cadeyn faylasheeduna ma gaadhaan xeer ilaalinta hadaan la fagurin oo xeer ilaalinta waxaan la fagurin ma geyno
structure-ka xafiiska structure-ka xafiisku waan soo socdaa okay kaydka raashinkan kuma horeeya wuxuu ka mid ahaa kaysaska aanu baadhnay ee qabanay buu ka mid ahaa kayskaas cid baa ku eedowday eedaa cid baa yeelatay galdacwadeed baa laga sameeyey xeer ilaalin baa loo gudbiyey ruuxaasu isagoo maqan isaga iyo qaar kaleba iyagoo maqan ayaa dacwadooda la oogaya marka saasuu anaga xeer ilaalinta ku galay oo nagu dhaafay ama ha yimaado ama ha maqnaado dee xukunku wuxuu dhacaya isaga oo magaranaysaa ruuxu isagoo maqana waa la xukumaa isagoo joogana waa la xukumaa jaaniska inuu qofku isdifaaco isaga ay dan u tahay su-aasha taa ku xigta arinta miisaaniyadda xisaab xidhka 2024 maqnaanshaha iswaafajinta dakhliga iyo kharashka marka warbixinta xisaab xidhka 2024 kuma jirto iswaafajin xadhaagii soo wareegay sanadkii 2023 wixii xadhaa soo wareegay kuma jirto warbixintan dakhliga la helay kharashka la galay iyo xadhaaga guud ee sanadka 2024 u yaala ama lagu leeyahay dawladda waxaad faahfaahin naga siisaan sababta ka maqnaanshaha iswaafajinta habka loo adeegsaday hubinta saxnaanta xisaabaadkaasi in la sameeyo reconciliation ama dib lacagta loo soo celiyay in kale qodobka xisaab xidhka 2024 iyo balancekiisa waxaan u dhaafi doonaa teamka technicalka su-aalahan aad weydiinaysaan ee comparison budgetkii hadhaagii soo wareegay waxaasoo dhan marka dee hanti dhowrku isagoo xisaabta muu soo xidhina opinion buu ka bixiyey haddii wax lasoo barbardhigayo iyo haddii wax laga deynayo labadaba marka waa additional information bahayd hanti dhowrihii hore raacin jiray si fahamku ugu fududaado cidda akhriyaysa laakiin keliya waxay ku beeskartay xisaabta uu soo xidho xisaabiyaha guud dee standardka ka reebay waxaasoo dhan in lagu daro miisaaniyadda xisaab xidhku ku kooban yahay miisaaniyadda ka baxsan dee idinkuna maydaan ansixin anaguna xisaabteedana lagama rabo oo waa tan la yidhi marka hore miisaaniyadda ka baxsantay si gaara ma loo eegay waa su-aal kale oo wax lagu bixiyey ma la eegay laakiin buugga xisaab xidhku wuxuu ka kooban yahay miisaaniyaddii golaha wakiiladu ansixiyey ee xeerka noqotay tii haddii ku jirtay waana laga rabaa haddii aanay ku jirinna deena lagama rabo oo laakiin dee si gaara waa loo weydiin karaa ma la baaray oo wax lagu bixiyo taasoo nidaamkeeda si gaara waa la isaga waraysan karaa laakiin wax mandatory maaha standardkan iminka dawladdu qaadatay ee xisaabta dawladda lagu xidhaya ibsis cash basiskuna inama faraya qodobadaas inay ka mid noqdaan dalkeena shantii sane ee iminka soo socday wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud waxay go'aamiyeen in xisaabta qaranka lagu soo xidho ibsis cash basis nidaamka dawladda ee naqadka maxaa dakhli soo galay maxaa kharash iga baxay maxaa balansiyaal maxaa opening ah marka waxay ku beeskaraysan tahay wax kasta cash basis ayay ku beeskaraysan tahay waxyaabaha marka agrwalka ah oo gudoomiyuhuna uu halkan ku xusay sababaha xisaabiyaha guud uga reebay reportkana uga maqan tahay horta su'aali waa taa oo sababtaas uga maqan tahay xisaabteena qarankeena waxay ku xiran tahay ibsis cash basis marka laga tago hay'adaha macaashka sameeya oo iyaga lagu soo xidho nidaamka IFRS-ka lagu soo xidho oo deymihii iyo wixii iyo alfansiyada iyo wixii oo dhan ay la socdaan marka si xildhibaanada ay ugu sii fudaato gudda ugu sii fudaato xisaab xidhkii xisaabiyuhu soo xidhay hanti dhowru horta opinion wuxuu ka bixinayaa xisaab xidhkaa uu xisaabiyaha guud u soo gudbiyey ayuu ama odhanayaa waa saxsan tahay ama waa qaldan tahay oo waxaas iyo waxaasay ku qaldan tahay marka si fahankiina ay u sii fududayso isla xisaabtii opinionka hanti dhowruhu ka bixinayay weliba hanti dhowraha guud xisaabtaa markii opinionka laga bixinayay ma joogin 7 maalmood buu buugga oo almost 95% dhammaystiran uu ka soo gaaray marka opinionka kaasaan ka bixinay xisaabtii iyo balancekii iyo wixii oo dhan kii xisaabiyaha guud baa ku lifaaqan oo daba yaala wixii agrwala waa sax oo tii gudoomiyuhuna weydiiyey oo kuwa ka maqana marka sababta xisaabiyuhu ku justify gareeyey xilligaa hanti dhowraha guudna uu ugu qancay waxay ahayd maadaama standardka caalamka qaadanay oo waxa la wixii kaash maxayna soo galay lagu soo report gareynayo sababtaasa deymaha iyo waxyaabahaas ay uga maqan yihiin taas ayaan ka leeyahay dakhliga waxa ka hadli doona saraakiisha kale insha Allah sidaan xogta ku hayno waxa jirta wasaarado aan hor loo baari jirin wasaarada culus
ma garan karo inaad bilowdeen wasaaradda maaliyadda baadhis muddooyinkii u dambeeyey laguma samayn wasaaradda madaxtooyada lafteeda markaa wasaaradaha aan sida ee aan awood badan lahayn baa la baadhaa oo qarankeenu baadhaa mise wasaaradaha waa loo sameeyey markaa arrintaa wasaaradda maaliyadda inaan baadhis lagu samaynin xogtaanu helnay ayay ka mid ahay markaa wasaaradaha waaweyn baadhis ma ku samaysaan ee dhaqaalaha iyo miisaaniyadda culus dhex maraan mise wasaaradaha miisaaniyaddooda aada u hooseysa unba la baadhaa su-aasha wasaaradda maaliyadda maadaama hay agaasimiyey waaxda dowladda dhexe wasaaradda maaliyaddu way ka ballaadhan tahay wasaaradaha kale wasaaradda maaliyaddu waa 400 iyo dheeraad bilyan sababta annaguna waxaanu haysanaa hantidhowraha guud baa hore u sheegay caqabadda wuxuu yidhi wakhtigaanu haysanaa waa 2 bilood wasaaradda maaliyadduna intay baaxad leegtay iskeelkeeda baadhisay aad buu u ballaadhan yahay xafiiskoo isku dhowr iyo 20 qof 2 months bay qaadanaysaa iyadoo keliya marka iyada waxaanu inta badan xafiisku dib ugu dhigi jiray waxay caqabadaha jira waqtiga la haysto waxa lagu qaban karaa 10 wasaaradood 15 wasaaradood baan dhamayn karaa inta wasaaradda maaliyadda baarayo sababtaas keenta markasta in dib loogu dhigo fadmaasanta su'aasha taa ku xigtay labaad qonaanshaha dakhliga iyo kharashka miisaaniyadda ka baxsan warbixinta hantidhowrka waxaa ka maqan dakhliga iyo kharashaadka miisaaniyadda ka baxsan ee sanadka 2024 kharashkaasi iyo dakhligaas oo ka kooban wadada Cerigabo kabka loo qabto laga jaro qaaraanka shaqaalaha cashuurta loo qabto dawladda hoose oo arrintan kabka u mitaas la xiriira laakiin khidmadda notayooyinka dhigaalka maxkamadda hawlgallada horumarinta iyo in lagu muujiyay hantida aan raagin marka advanceska la qaatay la isticmaalay lacag la sii horumarsaday dhiirigelinta ururinta cashuurta oo waxa jirta arrin loogu talagalay shaqaalaha dakhli ururinta habsanka shaqaalaha lacag laga jira marka taa lafteedu intay amountkeedu yahay kuma cadda xisaab xidhkan marka lacagaha la jaray ee habsanka shaqaalaha laga jaray iyaduna halkay maartay ku dhacda ama ay noqotay xisaabteedu iibka baasaboorada shirkaddan Trafigura fiida laga qaado iyaduna kuma jirto marka lacagahaasi maqnaanshaha dakhliga waxa inta ay raaca anagu balahan maadaama ay gudidii u qaabilsanayd xisaabtanka iyo daahfurnaanta wixii dhankayga waxaanu doonaynaa inaan ka shaqeyno in qaranku si daahfuran wada shaqeeyo marka wixii dhexdeeda ee naga qaldama si sharci ah inuu dhexdeeda ugu noqon doonaa wixii procedure aanu marnana waynu dib aynu wada hadli doonaa marka wixii daahfurnaana diyaar baan u nahay kamana wareegano marka insha Allah gudi ahaan waan isku noqon doonaa golaha iyagana waan ku noqon doonaa dakhligu waa laba waxna waa ordinary oo dakhliga caadiga waxna waa below the line oo shirkado ama magaranaysa institutions waxa loo qabto oo hadhowna loo celiyo waxa kamid ah Trafigura scan fee baasaboorada imika kale Trafigura kale waxa weeyaan iyada waxaynu u qabanaa lacag ah each foosta kasta waxay ku leeyihiin $3 oo hadhow inta loo qabto dib loo akoonkooda lagu shubo scan fee waa saasile marka iyagu horta waa labadaas waa dakhligu waa labadaas waa ordinary iyo below the line lacagta loo celiyo su'aasheedu ma aha caadi ma صح wixii iyaga loo celinayo heshiiska ku صح fee baa laga qaadaa faankiigu yahay fee iyaga laftoodu ay bixiyaan maadaama ay maamulayaan qaybta ka shidaabka dawladda lagu wareejiyey feedii iyaga laga qaadayay في أنو ده في ده ما قرنا يو لكن واحد ده مايا واحد شرى $6 أو الله قبته الله سيو marka de Trafigura ma kor lacag $3 maxay ku heshay su'aasha in la isweydiiyo ka horeysa horta maxaa laga qaadaa marka de Trafigura dawladda maalgashi bay sameysay maalgashiga sax ma aha in waa su'aalo kale laakiin de waxa lagu la qancay inay maalgelin ku sameyso de meesha hamashi dalka taas awad celinteedii waxa loo sameeyay inay $3 oo aad weydeen in barigii foostadii ba inta la siiyo marka lacag kale oo fiyo oo laga qaado anagu ma ogin intan wax baadhina ma arag
dee haddii meel kaloo suuq ka baxsan lagu kala qaatana dee warkeeda waan wada raadin doonaa. waxaan saxayaa xagga xeerka waad ogtihiin xisaab xidhku wuxuu raacaa international waxaa la yidhi nidaam xisaabeedka dawladdu wax ku xisaabsanaan ku xisaabino marka maadaama nidaam xisaabeedkiina xidhbayo xeerka waxaad siiseen maaliyadda inay xisaabtoodii ku xidhantay December 31 sanadkii hore ay xisaabta ku soo xidhan 4 bilood oo 30 ay keenaan April xafiiska dhowri wuxuu haystaa 1st May to 30th of June waa imisa waa 60 maalmood sooma 60kii maalmood institutionska la soo raacin karayaabeen ka hadlaynaa laakiin ma aha wasaaradii maaliyadda iyo wasaaradaha kale aanan baadhin ma baadhayno periodkooda halku ku dhacaya July iyo wixii ka dambeeyay marka xisaab xidhkii aad iga sugaysay de June baanan soo raacin karayne laakiin macnaheedu maaha ma baadhayno laakiin xagee xisaabta ka soo raacayaan the following year baa laga yaabaa in de la soo raaciyo. su-aasha igu sii xitaa xisaab xidhkii 2022kii guddidii ugu horeysay waxay golahu ansixiyey waxa la soo raaciyay talo bixino iyo recommendations loogu talagalay in xisaab xidhada dambe la raaco maxaa ka qabsoomay maxaan si ka qabsoomay intii aad joogteen xafiiska arintaasi wixii ka qabsoomay ama wixii ka fulay waxaan ka fulay gudoomiye waxaan raacinayaa xabadda xisaab xidhka 2022kii goluhu waxay soo raaciyeen talo bixino lifaaq waxyaabaha ka fulay waxa kamid ah tiibka hanti dhowruhu uu ka hadlayay in hay'adaha kale ee dakhliga qabta lagu soo wareejo wasaaradda maaliyadda lagu soo wareejo talooyinkii golaha ay soo jeediyeen la fuliyay baa kamid ah waxa kamid ahayd in agaasimayaasha guud ay kaliya saxiixi karaan oo wasaaradaha qaar la saxiixi jiray akawnada gaar iyo mararka qaar voucher-kaba in wasiiradu ay saxiixi jireen taana guud ahaan wasaaradihii oo dhan imika agaasimayaasha guud ayaa saxiixa marka waxay ahayd 5 qodob bay ahayd labada kamid horta iyaga waxyaabaha fulay ayay kamid tahay intii badadii uu joogay hanti dhowrka su'aasha ii xigta hanti dhowrka ma la hanti dhowrayaal madax bannaan xafiiska hanti dhowrka ma lagu sameeyey maadaama isaga laftiisu miisaaniyad uu leeyahay shaqaale uu leeyahay miisaaniyadiina si daahfuran ma loo hanti dhowray maadaama adinku hay'adihii dawladda oo dhan aad wasaaradihii hay'adihii dawladda kale weli hore ma u dhacday haddayna dhicin diyaar ma u tihiin in golaha wakiiladu hanti dhowr madax bannaan u soo dira xafiiskiina si loogu sameeyo hanti dhowr si aad u isticmaasheen miisaaniyadiinii breakdownkeeda qaabkaad u isticmaasheen arrinta kale maadaama aanu ahay guddi cusub waxaanu soo gaarayaa dee warbixina nagu soo dhacaya waxaa nagu soo dhacaya cabashooyin intan hanti dhowro guud iyo ku-xigeenka hanti dhowraha marka laga reebo waa agaasimo waaxidadeeda waa intii xafiiska madaxda ka hay balse waxaa jira shaqaale cabasho qaba oo ah in arinta loogu talagalay maxaa la dhahdaa kharashka ama gurnada baarista waqtigii hore intii ay qaadan jireen in ka yar imika in lagu bixiyo marka sanadkii horena xafiiska hanti dhowrka guud madaxigeenka loo kordhiyay ugu badnaa wuxuu ahaa qaybta baarista oo 20% la kordhiyay marka maxaa keenay hanti dhowr guud in gurnadaas waxay ahayd shaqaalaha haday gobolada u baxayaan haday gudaha ka shaqeynayaan wasaaradaha gunada ay ku qaadan lahayn inay korodho halkii laga filayay inay hoos u dhacdo qofka shaqaalaha ah ee aan xogta ahayn waxay ku timiday maadaama halkan aynu si daahfuran uga wada hadlano shacabka reer Soomaaliland ka daawan doonaan maxaad ku qadcinaysaa arrintaasi qofka qaba ee aan ku soo gaarin xafiiskaaga aan access ka u lahayn taasina waa su'aal aan doonayo sababta keentay inaad ka jawaabtaan cabashada xagga shaqaalaha wixii lagu bixin jiray baarista horta aniga baarista aanu sameynay baaris la ego naga horeysay horta ma jirto baarista aanu sameynay baaris la ego horta naga horeysay ma jirto baaristana anagu waxaanu ku bixinayno dee anaga inoo taalaayo waxa weeyaan shaqaalaha dee waxna waa mushahar qofku leeyahay waxna waxa weeyaan activity gaar oo dheeraad oo aan cid u dirayo qofka aan u dirayo kumaan khasbina waxa leeyahay inta aan hayaaye shaqada caynkaas ku qabo oo dee taas waa negotiable dee maaha cidna dee kama caban karto oo dee go'aanka anaka loo shaqadaas dee anaka inoo taalaa hadii la ka dhigo anu waxaan ahay waaxda dakhliga
baadha ilaa revenue and customs waxaan baadhaa 19 xarumood oo cashuuro bari iyo 26 custom runtii oo loo baahan yahay in sanadkii oo dhan in sanadkii goob kasta iyo xarun kastaba la tago runtii waa dareemi kartaa baaxadda shaqo culayska ay leedahay marka waxa weeyaan waxa iminka 8 sanadood almost intii waxa weeyaan hanti dhowrkii jiray wax kasta ma ama cashuuro bari lama baarin waxa weeyaan de waa in loo manage gareeyay budgetkii yaraa xafiisku hayay oo waa loo jajabiyay waxa laga yaabaa in waxa weeyaan 3 bilood ama 4 bilood hal shaqo u bixi jiray maantana uu bishii kaligeed ama 4 ama 5 shaqo u baxo marka waxa weeyaan anaga laftaydaaba u baahan in waxa weeyaan budget kale iyo miisaaniyad kale helo si loo fargareeyo de xarumaha inta leeg iyo kastamada inta leeg كل لو حفيسه جود كجودي هاني كحفيس هان وحنا هيدا كل لو حفيسه قرن كاكونتبل واه وكشقيني ترانسبيرنت iyo wax weey isla xisaabtankii taawrtoon ku hambalyeynaya gudida cusubna dirdirgelinta ay bilowday runtii waan maxay ahayd ku hambalyeynaya kulli hal qodob baan laba qodob baan insha Allah rajeynaya qodob ku celceliyay gudoomiye ku xigeenka ah caqabadaha ka xafiis ahaan idin hortaagan kulli hanti dhowra guud baa sheegay oo qarankan kala mid nahay laakiin sidaan warka ku hayo oo aan de xogaan loo wahay gudiyadii hore ee xafiiska baake jirtay ee hanti dhowrka guud ee qaranka la shaqeyn jirtay in mushaharkooda la kordhiyo sanad kasta oo kale way kala shaqeyn jireen oo maxay ahayd maadaama tin xafiis gudida runtii baariseedo garanay baaxadda qaranka ee baarista dalka loo baahan yahay runtii taa cusaan waxaan idin gudbinaynaa in aan nagala shaqeysaan bal xafiiskan hanti dhowrka guud budgetkiisa in the 27 insha Allah dib loo eego kulli la kordhiyo maadaama runtii ay aad u kooban tahay qodobka labaad ee gudoomiyuhu weydiiyay hanti dhowra guud ee ahayd paymentka xafiiska shaqaalaha iyo gunadan maxay ahayd baarisaha lagu bixiyo iyo xagga structure-ka tan qodobka structure-ka ku horeeyo hanti dhowra guud si fiican buu uga hadlay waaxda kastamada iyo cashuura bariga waa wax uu soo kordhiyay hanti dhowra guud وانا واحد maxay ahayd maanta muddadii uu joogay maxay ahayd hanti dhowri hore sida uu sheegay waxa dakhliga sameeyaa dadka kastamadii cashuuraha beerka 8 sanadood hal baaris lagu ma sameyn maanta waa ilaahay mahadi magac buu bixiyay hanti dhowra guudo wuxuu yiraahdaa waaxda wareegtu yiraahdaaye aan fariisan waxa way bari ilaa galbeed waxa way gaarigooda iyo maalinta xafiiska yimi gaarigooni u sameeyay hartooba waxa weeye xaga wuxuu culayska saaray in dakhliga kor loo qaado oo de maadaama waaxdii maxay ahayd la dagaalanka kontrabanka iyo maaliyadda wada shaqeynayeen inuu halka hanti dhowra guud maxay ahayd uu yiraahdo hanti dhowrkina uu joogayo oo inankii qabanayay lacagta ee customka jooga ama cashuura bariga jooga uu ogaado in hanti dhowrkina joogo runtii maxay ahayd taa waan ku habeynay waa wax uu soo kordhiyo taana in hanti dhowra guud ku appreciate gareynaan insha Allah rajeynaya xagga gunnada xafiiskan muddada aanu hanti dhowra muddadii ka horeysay hanti dhowra guud joogay hanti dhowraashii hore for example marka wasaaradda dawladda hoose burca la dirayo team loo dirayo waxaanu soo joogay laba qof ama 3 qof dawladda hoose burca loo dirayo dawladda hoose burca wad garanaysa capacity-geeda waxa weeye ugu yaraan 12 qof 13 qof 10 qof ugu yaraan ayaa baaraya muddada sanadka hanti dhowra guud muddada kooban la joogay teamka baarisaha galaya institution isagoo eegay capacity-ga baarista institution kaasi runtii horta numberka uu kordhiyo waxa weeye halkii waawal hore 2 qof iyo 3 qof loo diri jiray maanta 10 qof ayaa loo diraayo waxa 10 qof baa waxay qaataan kunay qaataan daily oo taana horta runtii waa wax maxay hanti dhowra guud ku soo kordhiya xafiiska waxyaabaha kale ee la yaab kale bariga hore jiray open bay ahaan jirtay baarista iyo muddo bilya 2 bilood bis ka socon jirtay baarista wasaaradda for example la diro oo wasaaradda maaliyadda kale 2 bilood kale socon jirtay maanta xafiiska hanti dhowra guud timeline buu sameeyo muddo 15 cisha ama 20 cisha in lagu soo baarista lagu soo gabagabeeyo isagoo de teamkii baarayay numberkiina kordhiyay wax weeye paymentkina uu dhinac socdo lacagtii bixintuna runtii maxay ahayd taasi waa culays badan oo xafiiska xaggaasina u soo korodhay marka insha Allah waxaan rajeynayaa in ay nagala qayb qaataan sida xafiiska dakhligeeda loo kordhin lahaa maxay ahayd budgetkiisana inta structure-ka marka hore steed waxood buu xafiiskan waxaad ka dhigtay 16 agaasimo waxayd marka structure-kii bal qaybta shaqaalahana miisaaniyadii sanadkii dowladda kuma jireen
gunooyinka ay mas-uuliyiintaas soo kordhay ay heli lahaayeen halka iyaduna ka imanaysaa maadaama ay u baahnaayeen dee qofka soo kordhay maaragtay guno xileed uu qofkaasi inuu xaq u helo ay leedahay structureka xafiiska waxbaan ka bedelay sababtan wax uga bedelayna waxa weeyaan anigu waxaan tegay hanti dhowrayaal xafiis oo badanna waan tegey oo Ghana tegey Kenya tegey Hindiyana waanu booqanay oo tiimkayga qaar ka mid way tageen structureska tiimka mandaqada aynu ku noolahay sibay hanti dhowrayaashu xafiiskoodu u samaysan yahay marka inagu oo ka duulayna nidaamka caalamka uu shaqeeyo oo kale ayaynu hadii la ka dhigo ku base gareynay waliba aniga oo soo koobay oo ka fikirayay dhaqaale ahaan in iyo experience ahaan iyo space ahaanba inaynaan halka ay dawladaha qaar gaareen markiiba gaari karin laakiin waxay la muuqatay in sidii hore uu ahaa aanu ku shaqaynaynin waayo waxaynu u taaganahay maanta inaynu caalamka la jaan qaadno inaynu ka mid noqono intersai iyo afrosai iyo hay-adihii caalamiga ahaa inaynu members ka noqono inaynu shuruucdii caalamiga buuxino ayaa laynaga rabaa mana buuxin karo structure ahaan sidaynu ahayn aad iyo aad xafiisku basic u ahaa aqoon ahaan tababar ahaan structure ahaan intaba basic buu ahaa marka in wax la soo kordhiyo ayaa aniga ii muuqatay yes kharashaad uu soo kordhaya laakiin de waad ku khasban tahay inaad wax isu celceliso oo aad dabadeedna gaadho hiigsigaaga sanadka dambena aad budgetkaaga ku darsato ay tahay taanu aan nagala shaqayn doontaan arrinta bankoon hore loogu samaynin hanti dhowr oo aan xisaabtiisana isticmaalo iyo sidoo isticmaalo aan hore loogu samaynin waxa jirta mashaariicda World Bank in iminka dhaqaalaha soo shubaan baananka gaarka ah private-ka lagu shubo caqabaduna waa audit madax banaan oo aan lagu samaynin xafiiskeena banka marka maadaama mid kamid ah caqabadaha ay u taagan tahay arintaas oo halkii bankeenu lacag intuu receive gareeyo lacagtaasi marka uu isticmaal lahaa inuu in de aaminaadiisina iyo credibility-giisa sumcadiisii iyo dhaqaalaba uu ka heli lahaa adeegyada halka uu ka qabanayo mid kamid ah caqabadahaas uu taagan yahay marka madaxweynaha ma kala hadasheen in arintaasi baadhista lagu sameeyo maadaama ay tahay hay'ad kamid ah hay'adaha dawladda arinta igu dambaysa waxa jirta waxa sida warbixinta ku cad xisaab xidhka hay'ado kale kharashkii loo ansixiyay oo miisaaniyadda kharashka in isticmaal loogu talagalay kharash ka badan bay galeen warbixintana kuma cadeyn asbaabta keentay in marka kharashaadka kharash ka badan ay hay'adahaas galeen sidoo kale kamid ah warbixin wax talaabo ah oo laga qaaday waa maxay sababtu xagga hadii la ka dhigo private banks akawnada ku jira waxa jira hay'ado dawladeed oo aad u badan oo bangiyo private account ka furtay ayaa jira aad iyo aad u badan hay'adaha qaar baa dhowr iyo 20 account ay uga furan yihiin bangiyada gaarka loo leeyahay sida caadiga waa la furan karaa hay'ad walba way furan kartaa account mar haday shaqo ay ku qabanayso laakiin shardigu waxa weeyaan in xisaabiyaha guud laga diiwaan galiyo warqad laga soo qaato ogtana hanti dhowrka la soo siiyo si account loogu furo warqad baan qoray anigu bangiyada dhan aan u qoray in aan bangi madax banaan uu hay'ad dawliya u furi karin account ilaa uu warqad ka soo qaato xafiiska xisaabiyaha guud ogtana la soo siiyo xafiiska hanti dhowrka guud mooyaane annaguna markaanu baadhi samaynayno warqad baanu u qornaa hay-adaha bangiyada gaarka loo leeyahay oo aan nidhaahnaa noo soo daabaca statementadii dhammaan accountnada ay ku leedahay hay-addaas bangigiina markaa bangiyada jira oo dhan baan warqad u qornaa si aanu xogtaa u helo oo aan xogtaa magaranaysaa ay xogtaas noogu soo ururto marka dee lama odhan karo yaanay furani laakiin ha furtaan laakiin dee dawladda soo ogeysiyaan isla xisaabtanka soo ogeysiyaan oo yaanay dee wixii la qariyaa dee waa dembi
saxiixyadana waa la kala leeyahay sharcigu waxbuu qorayaa xeerka kala xadayntu waxbuu qorayaa yaa saxiixi kara wax yaan se saxiixi karin xeerka kala xadaynta dowladda ayaa qoraya oo cadeeyay xeer hoosadeeda qoraya marka taas iyaduna murug ma leh haddii ilaahay ka dhigo xagga hanti dhowrka yes cid walba isla xisaabtanka dee way u furan tahay wax diidayaa ma jiraan golo ahaan siday waajibkeedii ku tahay in laydinla xisaabtamo bay waajib ugu tahay hanti dhowrka in lala xisaabtamo isagana sidii loola xisaabtamaya waa hawl kale oo ay baahnayn inaynu si gaara uga wada hadallo iyo hanti dhowru meeshu ka imanayo iyo cidda kharashka u haysa iyo waxaas waa another subject kale marka waxaan ku wareejinayaa tiimkayga inay haddii ilaahay ka dhigo qodobadii aan dhaafay inay ka warbixiyaan haddii ilaahay ka dhigo banka dhexe oo gudoomiyuhu ahayd meediin qorshaysanta inaad baadhaan maadaama hore loo baadhi jirin marka waxa ahaanay hanti dhowr guud waan isla eegnay maadaama banka dhexan horena loo baadhin uuna ballaaran yahay branches badan uu ku leeyahay gobollada badankooda waxaan ugu talagalnay oo qorshaysan inaan baadhno June wixii ka dambeeyay marka uu noogu jiraa qorshaha baadhista xafiisyo badan oo lacag lagu kharash gareeyo sabab xisaabinta 2024 shaqada nidaamka habka dowladda hoose waxa ku cad wasaaradda dowladda hoose oo account wali sagaashan bi lacag account-ka 199 bi iyadoo aynu suunay sanadkii 2024 ay wasaaraddaasi ugu yaraatay jirin waxa kaloo jirta kharash kala baxdo saabta dowladda sidoo kale shaqada waxa ku jirtay wasaaradda ay kala baxday lacago laba xisaabood kala duwan isla sanadkaas sidee u dhacday arrintaas waxa su'aasha arrinta kabka haddaan sii faahfaahiyo waxa jirta kabka 12% barka qaab loo qaybiyo oo degmooyinka aayada 6% qaataan degmooyinka B% ka qaataan 2% degmooyinka C-na 3% degmooyinka D-na 1.5 loo qaybiyo marka waxa jirta xafiiska xisaabaadka guud inuu qayb ka qaato lacagtaas oo kharash lagu laakiin de meel ay miisaaniyad ka haysato meel sharci ka haystaan ma jirto arrintaas marka markii hore arrimaha gudaha iyaduna kharashka kala heli jirtay marka arrintaasi dowladda hoose lacagtii gaadhi lahayd in meelo dhexe lacaga lagu jarjaro hadday markii hore arrimaha gudaha ahayd hadday xisaabxidhka hadday xafiiska xisaabiyaadka guud ahayd iminkana lacagtii dowladda hoose may wareegtay marka lacagaha halkaa lagu jaraya waa lacago ka go-an kharashka dakhliga guud ee loo qabtay dowladihii hoose dalka miyaana ahayn lacagtaa la isticmaalaya lacag qalada oo aan xafiisyada sharciyadu haysan oo ay tahay in aynu ku dhow ku tihiin lacagtaa lagula xisaabtamo ciddaa laga jarayo ee arrimaha liidkana weysa sharciyada horta su-aasha hore fahankayga waxa weeyaan xilliga 24kii dowladaha hoose tirada guud intii aan laascaanood iyo inta hal maal aanay naga bixin 103 bay ahaayeen laakiin 3 baa la baaray dee horta taa jawaabteeda la wixii mandate-ka lahaa ayaa dee horta su-aashaas jawaabteeda daluhu anagu anigii ku-xigeenkaygu mandate-ka maanaan lahayn haddaad maanta na weydiin lahayd 2025 imisaa maraysaan dowlada hoose dee jawaab kale aanu idin siin lahayn xagga baadhista sababta iyadoo intaasoo dowlad hoose ay tahay aan loo baadhin waxa unay la xidhiidhaa imise wasaaradood baa jiray oo imisaa la baadhay iyana taasuna way la xidhiidhaa imise hay-ada madax bannaan baa jiray iyo imisaa la baadhay iyana way la xidhiidhaa imise ciidan baa jiray maxaa la baadhay maxaase laga tegay iyana way la xidhiidhaa marka baadhistu sideedaba dee baadhistu waxay ku xidhan tahay markaa ciddii gacanta ku haysay ayuunbaa dee horta jawaabtaa leh oo innagu horta jawaabtaa ma lihin dareenkaa waanu qabnaa inaan intii la gaari karahayay aan la gaadhin ama ha ahaato policy dowladeed amaba dee mid gaara ha ahaatee
dee cid baa gacanta ku haysay kole ciddaasaana jawaabteeda le arrinka kabka kole tiimkaygana waan u dhaafi doonaaye dee xeerku waxbuu qoraya xeerka iyo fulintiisana dee goladii sharci dejintu kole idinku weeyaano haddii xeerarka dee laga baydho dee idinkay tahay horta inay idinkuna gacanta soo gelisaano waxaad tirahdaan xeerku waxaa soo qoreeyay maxaa waxaa looga baydha horta kabka anna kuma qaybino kabka dee nidaam loo qaybiye baa jira inagu qaybta ma lihin inagu eegistaanu leenno iminka baadhistan ugu dambeysayna dee riboodkayga waxaa ka heli doontaa markuu soo baxo kabka sidii loo qaybiyey iyo sida loo isticmaalay wixii aanu ka nidhi kolley riboodkay ka soo bixi doontaayo dowladaha hoose iyo wasaaradda dowladda hoose riboodkeeda